maadaama group 5 dadkii ugu horreeyay ee lagu soo qaaday ay Mareykanka soo gaadheen arrintan waxay war wanaagsan u tahay dadka qaxoontiyada jooga ee Soomaaliyeed iyo dadka raba inay soo qaadaan eheladooda mustaqbalka dhow maxaa yeelay programkan sanadkan baa la ansixiyay already-na bishii 6 dhamaadkeedii waxaa la keenay dadkii ugu horreeyay taas oo ku tusinaysa maalinta la ansixiyo phase 2 oo Soomaalida badan ay sugayaan maalintaaba dadka aad programkan u bilowdo inuu bilo gudahood lagu keenayo meesha aad joogto waa war aad u wanaagsan Soomaa haddaba sidoo kale phase 1 Soomaalida ayaa lagu keeni karaa qof cadaana baa sponsor gareynaya wuxuu dalbanayaa inuu qof qaxoontiyada ka soo qaado qofkaas isaga ma dooranayo ee hay'adda Welcome Corp oo ah hay'adda u xilsaaran dalka Mareykanka iyo hay'adaha qaxoontiyada u xilsaaran ayaa wada xiriiraya qofka ay rabaan ay soo qaadayaan waxa laga soo qaadi karaa Soomaalida Kenya joogta ku Ethiopia joogta kuwa meelayoga kale qaxoontiga ku ah adiga oo gurigaaga iska jooga ayaa lagu oranayaa waa lagu qaadayaa كورسو فرحد وينو معها قف أو قحنتي أو جورجيس إسكت جوجل ويراه مريكان بالقوة ده أو قف عدانا بكو إسبونسر جري هذا فيديو كان سيشار جرايا تذكرنا رجال